عيد وفرحة وليبا عيدا وعيدا وين وحالله تلقلي إن دادكو ولا فرحه إن أي دمانتود أي جاران هير أي ولا فرحان معناها وحواي midkii baahnaa in wax loo taro oo baahida laga bi'iyo midka murugaysan in murugada lala wadaago oo murugada laga bi'iyo midka xanuunsan in la soo booqdo oo wixii loo qaban karo loo qabto in la isu naxariisto in gacmaha la isqabsado in la walaaloobo in niyadda saafi la isooga dhigo sidaas ay ku imaanaysaa farxaddu marka waa maalin farxadeed oo waa maalmo farxadeed oo maanta inoo bilowday oo maalmaha soo socdo oo dhanna insha Allah dhowrka beriya soo socota ayaa tashriiqa loo yaqaan maalmahaas oo dhan soconaysa marka waxaynu aan leeyahay oo aan ku celinayaa oo aan adkaynayaa inaynu isu naxariisano in aan micnaha ciidda ay leedahay inay dadkeena iyo shacabkeena ka muuqato oo asalkeedu yahay in la farxo ilaahayna laga cabsado lagu shukriyo ilaahay muslimiin inaga dhigay Soomaali inaga dhigay dalkan ina siiyey nabadan ina siiyey hawadan macaan ina siiyey ee aan qabowga lahayn ee aan kulaylka lahayn ee aan hanfiga lahayn inagoo caafimaad qabna in caawa halkan aan fadhino ilaahaygaas amaadsan إلهي وحن لنا هاي إلهي اللهم لك الحمد إلهي وأديك عن مضان أديك عن محضله أديك عن نصر تجليه إن عن عاوة مجالات المقدشة سن بضع هودا معان جويا معان قروح ضبضان إن أنكو ذا عيدنا أنك شعب كان إلهي وحوني لي لئن شكرتم لازيدنكم هدية الشكر ذان واردين بدليا ولئن كفرتم إن عذابي لشديد لكن هذا كفر دان عذاب كيغو وكليه شكري وحاو مهمسن إن إلهي سبحانه وتعالى أقرنه إلهي يا أوديسا إلهي شلي مقدشة سيدا يحيد كان دقاي ما أنت سيدا كان دقاي مقدشو مانتا iyo shalay Soomaaliya maanta iyo shalay markii wax la qiimeynayo Muqdisho waxaad ogeydeen aan habeen la socon karin Muqdisho oo dhiigu daadanayo oo qarxu meel kasta ka dhacayo Muqdisho oo wada checkpoint aan meel la mara jirin Muqdisho oo assassinationka iyo dadka la dilayay xaafadaha lagu dilaayo magaalada dhexdeeda lagu dilaayo bastooladaha lagu dilaayo habeen walba la dilayay ay ciida ka badan yihiin Muqdisho oo wada tacsi ah maantana maxaa ku muuqda Muqdisho nabada Muqdisho oo ka taraf iyo tarafka kale caawa daqiiqad kasta iyo saacad kasta aad xor u tahay inaad marto oo aad tagto waxaan soo marnay Muqdisho oo maalin walba wiil yar oo Soomaaliyeed oo hooyadiis ay bajaaj u iibisay si uu u shaqaysto lagu dilo waxaan soo marnay Muqdisho oo musiibo ka kacday oo aan kuwii khawaarijta waxba ka liidan oo ciyaal yaryar dadka ay diiranayaan oo aan la soo adeegan karin waxaan ka soo wada takhalusnay waxaasoo dhan waxaa inooga baxay kumanaan boqolaal dhallinyaro ah ayaa inooga shahiiday oo ayaga oo amniga ilaalinaya ayaga oo sharaf raadinaya ku shahiiday
saacad kasta oo la taagan yahay waxaa halis ugu jira amnigaas wiil ama gabar Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah oo adigoo kala ah oo ilaalinaya u soo jeeda aan seexanaynin habeen iyo maalin u taagan sidii ay Muqdisho sida u noqon lahayd dalkeenu sida wada noqon lahaa waxaa ilaahay ina soo gaarsiiyey leewaan kaan dhahnay la in shakartum la aziidannakum alxamdulilah inay inaan dhahnay ahayd waxay ahayd inaan ilaahay ugu shukrino waxay ahayd inaan uga mahad celinno kuwa naftoodii horay ee habeen iyo maalin u taagan ee aan seexanin inaan uga mahad celinay ahayd waxaan maraynaa maanta in qaarkeen meeshii waa alxamdulilah dhihi lahaa in kuwaa laga kari laayahay oo la yidhaahdo wiilkii Soomaaliyeed ee baabuurka checkinka ku samaynayay ee mid kale oo Soomaaliyeed uu checkinka uu ku samaynayo asaga sii check garaynayo oo uu camera ka fiirsanayo oo sidaa la isu ilaalinayo oo accountability-gu sidaas yahay oo qofkii toorey watay meesha maraan meel kale laga soo hadlayo la dhahayo kaamiradu ka muuqda qofka tooreyda watay muxuu yahay amniga sida loo ilaalinayo ayaa waxa la yiri checking waxa loo sameeyay isbaarooyinkaas waxa lagu tilmaamay isbaarada magac xun ah laakiin checkingkaas waxa lagu aruursadaa lacag saraakiisheena ma qabato horaa looga hadlay askarteena ma qabato gabdhaheenna habeen iyo maalin wiilasheenna habeen iyo maalin taagan ee amniga ilaaliya ma qabato dawladda Soomaaliyeed ma qabato shacabka Soomaaliyeed ma qabato madaxda ama dadka Soomaaliyeed ee arrimahaas maalmahan ku yar mashquulsan waxaan ugu baaqayaa in ay ciidamada amniga iyo saraakiisha amniga u cudur daartaan shacabka Soomaaliyeed u cudur daartaan in ay joojiyaan niyad jabinayaan mar walba dhalinyarada Soomaaliyeed ee naftooda hubays ee halyeeyada ah inay joojiyaan inay dhiiri geliyaan inay u tagaan inay dhaawacooda booqdaan in ay agoontooda booqdaan in ay ayaga taalooyin u dhisaan ay ahayd waad mahadsantihiin inay dhahaan ay ahayd shalayna soo joogay wixii jiray in kuwii sidaas ka dhigay dalka ay ka baxsan waayaan waxay la tahay ayagana uma qalanto ciidamadeena amniga iyo shacabka Soomaaliyeed ee ku taageeray ee kala shaqeeyayna arrintaasi ma qabato dawladda Soomaaliyeed ee wax kastoo qaaliya iyo nafiisa ku bixisay ee habeen iyo maalin u taaganna waxay la tahay arrintaasi ma qabato marka anigoo aad iyo aad u ixtiraamaya odayaashaas saaxiibadeena waxaan jeclaan lahaa in ay hadda kadib arrintaa ka waantoobaan oo aysan afku ka baran in meeshii ubucdii aan ka dhaqaaqaynay meeshaan ka noolayn inayna inaga toogin ummadda marka la gelayo ee la rabo in la baabi'iyo meelaha laga galo waxaa ka mid ah jeyshka ciidankaa ka mid ah in ciidanka la ceebeeyo in ciidamada amniga saraakiisha lala dagaalamo in la dacaadeeyo in la niyad jabiyo waxay qofkaasi ama ha ogaado ama uusan ogaanin laakiin wuxuu ka shaqaynayaa inuu amnigii burburiyo ka shaqaynayaa marka hadday niyad samaan uun ka ahayd iyo af ka xaday waxaan rajaynayaa in astaqfirullah yidhaahdaan
hadda kadibna aysan ku celin arrintaas waa hanti asagu uu leeyahay qofka sidaa lihi wiilka Soomaaliyeed iyo gabadha Soomaaliyeed ee amniga ka shaqeynaya ee sidaan maanta quruxdaan maanta ay Muqdisho u taalo ilaahay uu sabab uga dhigay ee boqolaal ayaga ay ku maqan yihiin oo ay ku shahiideen oo caruurtoodii ay agoon yihiin oo hooyooyinkood ay wiil la'aan iyo gabar la'aan yihiin aabayaalkood wiil la'aan yihiin arrintaas aad iyo aad ayaan ugu soo celcelinayaa qof kasta oo ciidamada amniga dacaydeeya caaya target ka dhigta wuxuu dhaawacayaa Soomaaliya u dhaawacayaa because Soomaaliya sharafteedii iyo calankeedii ayuu wiilka askariga huwan yahay asagu u dhimanayaa ilaahay dartiisuna ugu dhimanayaa wuu shahiidayaa caruurtiisa u agoontoobaysa meeshii ay ahayd inaad dhahno waad mahadsan tahay lacag baad aruursanaysaa ciidan ma jiro wax jira maaha ma dagaalami karaan waxaas wax qurux badan maaha way soo noqotay arrintaas waxaan jeclaan lahayn inayna mar dambe soo noqonin waxaan aad uga codsanayaa cidda arrintaas mar walba soo celisaay inay bal hadda kadib aad uga fiirsadaan haddii ciidanka dadka laga saan sheegay marka la rabo ummad in la baabiyo meelaha laga abbaaro ciidankaa ka mid ah waxaa ka mid ah culimadeeda ayaa ka mid ah siday culimada waad aragteen khawaarijtu yay beegsadaan yay caayaan yay ixtiraamka ka qaadaan culimada maxaa jira waxay rabaan in culimada iyo bulshada ay kala fogeeyaan oo ay bulshada jaahiliin aan waxba aqoon ka dhigaan maxaa jira markay aysan waxba baran markaas ay kaxaysanayaan marka culimada haddaad aragto dad beegsanaya culimada uu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka dhigay kuwii ambiyada dhaxlay ee loogu talagalay inay ummadda diinta islaamka ku hoggaamiyaan haddaad aragto qof taargadsanaya oo caynaya haddaad aragto ogow qofkaas waa laga dambeeyaa haddaad aragto hooyada Soomaaliyeed qof beegsanaya gabadha Soomaaliyeed oo aad ogtihiin qiimaheeda oo ah gabadha soo saarta halyeeyada oo waddankan hagaajisa oo micnaha noo yeesha kulligeen haddaad aragto iyada oo la taargadsanayo guriga laga saarayo la ciyaal suuqaynayo la sumcad dilayo haddaad aragto dowrkeeda la baabi'inayo haddaad aragto waxaa la rabaa in guriga laynaga baabi'iyo waxaa la rabaa ummadda in la baabi'iyaa la rabaa qoyskaa loo socdaa in la baabi'iyaa la rabaa waxaan rabnaa marka cadowgu dhinacyo badan buu ka imanayaa inaynu aad iyo aad u feejignaanaa la rabaa dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego Soomaaliya maanta iyo shalay marka laga eego dhinaca amniga marka laga eego dhinaca dhaqaalaha marka laga eego dhinaca siyaasadda marka laga eego dhinaca adeega iyo arrimaha bulshada intaas marka laga eego shalay say ahayd iyo maanta say tahay cidda rabtay inay ogaato ha akhriso xataa Soomaalida dawladdu waxay soo saartay hay'adeeda statistikada iyo waxaas oo iska dhaaf haddii aad dunida hay'adaha lagu kalsoon yahay ee riboodyada soo saara hadday tahay amniga hadday tahay dhaqaalaha hadday tahay caafimaadka waxbarashada hadday tahay siyaasadda meesha laga soo dhaqaaqay iyo meesha maanta la joogo intaba waa la qoray adduunyada ka hadashay riboodyaa laga diyaariyey qofka rabaa ee ha akhriyo deedna Soomaalidii shalay iyo midda maanta isgarab dhigo intaas uma dhaafayo sababtoo ah
waxaad aragteen dad dhahayo waddankii waa dhumay intaa la geeyey maxaan ku dhahaa waddankii waa baaba'ay meel baas baa la geeyey waad aragteen waxaan rabnaa xiwaar deggan ama dood deggan oo aad u deggan oo qabow inaan dadkaas la galo oon ugu sheego idinkoo mahadsan ku noqda riboodyada dunidu diyaarisay oo bal eega meeshaad leedihiin hadda soomaalidii way baaba'day shalay meeshay joogtay iyo maanta meeshay joogto tusaale yar haddaan usoo qaadanno caasimadda keliya caasimadda muqdisho keliya tusaale yar haddaan usoo qaadanno shalay say ahayd iyo maanta say ahayd ha la isu fiiriyo maalin dhaweydna waan sheegay dadka soomaaliyeed ee reer muqdisho ee caawa halkan in badani fadhido ayaa oo keliya ayaa macnayn kara muqdishadii shalay iyo muqdishada maanta waa u dhexeeya mid dan lihii ma macnayn karo mid ujeeddali ma macnayn karo mid bayteriye kale ku jiraani ma macnayn karo mid fariimo ummado kala xambaarsan oo weliba cadowii ma macnayn karo waxaa macnayn kara hooyada soomaaliyeed aabbaha soomaaliyeed wiilka dhallinyarada soomaaliyeed gabadha dhallinyarada soomaaliyeed ee maanta muqdisho joogta shalayna joogtay ayaa micnayn karta farqiga u dhexeeya muqdishadii shalay iyo midda maanta waa laga heestay runtii abwaaniinta ka heestay iyo fanaaniinta waxaan leenahay ciddii ka xun meesha ay muqdisho maanta joogto ee nabadda ah ee xorriyadda ah ee doorashada ah ee amalka iyo hoobiska iyo rajada ay filanaysa ah qofkii ka xun siday sheegeen indhaha ama ha xayigo ama ha fiiriyo ama iska meesha raba ha aalaada ama ha xayigo ama indhaha ku soo xooriyo meesha raba ka dhig say u taala laakiin muqdisho waa taas way hadashay meeshay caalamkuna waa og yahay ayana waa is og tahay dadkeeduna waa og yahay waxaan uga mahad celinayaa shacabka reer muqdisho ee sharafta leh meel kastay joogaanba inay ilbaxeen oo ay bislaadeen oo ay wax barteen waxaa la yidhaahdaa balaayada waxbay ku bartaa dhibaatooyinkay soo mareen maalinba mid ordaaya oo maro ruxaya oo mar la yaatolaay oo mar le allahu akbar yaa diin yaqaanaay oo mar le yaa waddankiiba xagga laga tuuray muqdisho way ka soo daashay way baratay reer muqdisho waxay go-aan ku gaadheen nabadgelyadooda inay ilaashadaan wiilashoodii iyo gabdhahoodii baa ku baaba'ay canshuurtoodii baa lagu bixiyey oo laga qaaday lacagtoodii ayaa lagu bixiyey way ka qayb qaateen deedna waxay ogaadeen natiijada laga gaaray iyo nabadda la gaaray heerkay gaarsiisan tahay sidaa darteed ama soo humbaalle ama wax aad rabtid sheeg reer muqdisho diyaar uma aha nabaddaas inay ka tanaasulaan waxaan leeyahay waan haynaaye aan xajinno yaan faraheenna laga bixin sidaas aad u haysaan u haya dowladdeenna soomaaliyeed waa dowlad ogol xorriyadda hadalka waa dowlad markhaati baadna ka tihin waa dowlad ogol in wax nalaga sheegaan ogolnahay hana la caayo wax kasta ha la sheego hana la qiimeeyo wax kasta oo qofka xor uu u yahay oo uu dastuurka u bannaynayo qofka soomaaliyeed aan u ogolnahay waxaan u ogolnahay ciddii mudaaharaadaysa inay si nabada u mudaaharaado waxaan u baahannahay ciddiina diidani oo leh annagaa idinka fiican annagaa shacabkuna jecel yahay
idinka laydin ma rabo cidda la dhahayso way mahadsan tahay shacabka xaakim ee noola soo xukunto aan cod wada doorano haddii shacabka ayaga ay jecel yihiin inay doortaan waan ku hambalyeynaa waana kula shaqaynaynaa hadday annaga shacabkuna jecel yihiin inayna doortaanna dee ha nagula shaqeeyaan sawdood gar-a ma aha sawdood ilaahay taqaan ma aha xukunka ilaahay baa leh in ilxukmu ilaa lilah ha yeeshee dadka ayaa la weydiistaa saxaabadii baa samaynaya afti oo dadka weydiinayay oo qof ugu tegaya guryaha oo weydiinaya oo lahaa ma hebel iyo hebel keed rabtaa la lahaa dadkeenna xorriyadda ha loo daayo dhaxaa wax lagu qasbay madaxa looga keenay ilaahay bay leeyihiin ilaahay baa xor ka dhigay codkooda ayay qofkay rabaan ay siinayaan middaas ha ku soo talagalo qofkii raba inuu kuraasta naga qaato ilaa laba qof isagama kacda kursiga waa inuu shacabka ka kiciyaa qofka si marka looga kaco waaba ka kacaynaa ee shacabka ha naga kiciyaan codna ha loogu kiciyo marka waxaan leenahay war haddii dadku aydaan dadka haysaninna dee dadka u imaada oo dadka kasbada oo xisbiyo furta oo dadka brogram u sheega oo caqli keena oo horay u socda deedna markaa dadku ha idin doortaan haddaydaan tala hayn soo maaha haddaydaan tala hayn annagaa tala haynee tala raac noqdo kaalay noo imaada xataa annagu waxaan diyaarunahay inay xisbigeena noqdaan intay ka soo mid noqdaan ay madax noqdaan weliba haddaydaan axsaab samaysan karin kaalay xisbigena soo gala haddaydaan dadka hortegi karin kaalay annagaa idin horgeynaynen haddaydaan dadka iyo shacabka heshiis lahayn kaalay annagaa idin heshiisinaynen diyaar baanu nahay intaba waana ku soo dhaweynaynaa laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego siyaasiga soomaaliyeed waxaa lagu aafeeyey 3 arrimood 3 aafo ayuu qabaa siyaasiga soomaaliyeed ilaahay ka magangala kulligeen aan ilaahay ka magangalo midda koowaad waxaa waaye u nuglaanshaha faragelinta shisheeyaha siyaasiga soomaaliyeed waxaa lagu imtixaanay inuu u jilicsan yahay shisheeyaha weliba shisheeyaha waa kuwa soomaaliya duminaya kuwaas inuu dhegaysto xoolo ka doonto la fadhiyo waxaan u malaynayaa qof kasta oo halkan fadhiya in badan oo ka mid ah hadda adduunkii maanta dee social media wax walba ku jira waad ogtihiin dowladaha israa'iil ka dambeeya inay dalkeenna kala goyso oo ay dhahdo qayb baanu wax ku darsanaynaa dowladaha ka dambeeya inay dalkeenna ka dhigtaan meel caloosho shaqaystayaal inta la keeno oo deedna transit looga dhigto dowlado kaloo muslimiin ee shacab oo muslimiina lagu baabi'iyo dowladaha kala goynaya dalkeenna ee aan oggolayn dowlad mid ah oo soomaaliyeed aan oggolayn oo aada og tihiin dowladahaas ayay siyaasiyiinteennu saaxiibbo la yihiin dowladahaas ayay saaxiibbadeennu u dhega nugul yihiin ayaga ayay la shaqaynayaan waxaan rabnaa in wax laysu caddeeyo oo dadka dowladahaas ayaga ah madiidinka uga ah soomaaliya ee la yaqaano ee ayaga u shaqeeya
maalin walba intay muqdisho imaadaan siyaasiyiintii muqdisho joogay u yeerinaya waxa dhaha kana dhahaya ilaahay idinku dhaarshay ma kuwaasaad u malaynaysaa inay Soomaaliya ixsaan u hayaan ma kuwii diiday markaan dhahnay dowladihii Soomaaliya kala qaybinay ee Israa'iil noo soo kaxeeyay soo waday Somaliland keen ee boqolaalka milyan ku bixiya luubiyo la geeyo dowladaha Westernka ah oo ka shaqeeya sidii Somaliland loo ictiraafi lahaa millions of dollars ayay ku bixiyaan si ay u soo saaraan senataro iyo xildhibaano wadamadaas soo gala deedna madaxdooda ku qasbay in Somaliland la ictiraaf oo Soomaaliya la kala gooyo oo Yuhuud soo degto oo walaalahan reer Falastiin la baaba'sho oo caasimad Qudus aan ictiraafna inay Israa'iil leedahay oo caasimadii Qudus la yaqiinay madiinada Bayt al-Maqdis aan dhahno Israa'iil baa iska leh waa caasimadeedii ilaa iyo weligeed dowladii waxaa ka shaqeynaya markaan dhahnay naga baxan dhaafa kuwii warqadaha soo saaray ee lama bixin karo ee up to now meelaha ay joogeen diidan in laga bixiyo kuwaas intay halkan u imaadaan bay saaxiibadana halkan joogo quraan ugu akhriyaan meesha markaas waxay yiraahdaan sidaana dhaha nasiib daro sidii bay dhahaan waxaan ka rabaa siyaasiyiinteena halkan joogto shacabka inay runta u sheegaan waxaan u malaynayaa hal nin oo ka mid ah intuu banaanka soo istaagay doorasho dadbad baan rabaa maydaan maqal ma dhahaan Soomaa idinka cabsanayaan laakiin annaga markay nala shiraayeen kuwa aan idin sheegay nin ka mid ah wuxuu dhahay doorasho dadbad baan dhahnaa raba sidaas dhaha way nagu dhaheen doorasho dadban baan u rabnaa annaga nagu dhaheen doorasho dadban baan rabnaa bay annaga nagu lahaayeen markaan isla fadhinay laakiin markay dibadda u soo baxaan waxay oranayaan nimankaani ma ogola in lala hadlo in la joojiyo ma rabo intaa ma rabo laakiin been bay idiin sheegayaan doorasho dadban ma rabno wakaas weydiiyo ha dhahan ma dhahayaan waa rabnaa annaga nagu dhahan ma rabnana idinkaydu kuma dhahayaan ma rabnana ma oranayaan annaga laakiin waa rabnaa bay nagu dhaheen marka qofka Soomaaliga ah ee siyaasiga ah Soomaalida siyaasiyiinta in badan oo kamid ah erayga in badan waxaan u leeyahay generalization ma fiicna dadkoo dhan ma wada dabcan dad sharaf leh oo akhyaar ah oo aad qiimo badan baa siyaasiyiinta Soomaaliyeed ka buuxa laakiin sida loo badan yahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed aafada ah in cadowga loo gacan galo weligood ay soo ahaayeen tusaale yar aan siinaa haddaan horay u yar dhaqaaqno marka waddaniyada laga hadlaayo iyo gobonnimo iyo geesinimo iyo dal la ilaaliyo iyo calan waxaa asal u ah askariga militariga ee Soomaaliyeed waad ogtihiin calanka Soomaaliya wuxuu ku kaydsan yahay wasaaradda gaashaandhigga yaalla halkaas lagu hayaa oo lagu ilaaliyaa gobnimada Soomaaliya halkaas ay taallaa jabhadihii dalkan burburiyay yaa hogaaminay saraakiishii ugu badnayd kulligood saraakiil baa hogaaminaysa oo waliba saraakiil qiimo lahayd markay mucaarad noqdeen dhammaantood xaggee aadeen ma taqaanaan meeshay tageen meeshay la dagaalami jireen bay tageen Addis Ababa wada tageen kulligood sidaa darteed siyaasiga Soomaaligu mar hadduu siyaasi noqdo marba haddii uu xukunkii uusan marka asagu joogin wuxuu u gacan galayaa cadow ilaahay amarkiisa waa nasiib darro weyn waaye in siyaasiga Soomaaliga dhibaato weyn ay ka haysato
waddaniyad xumo iyo camiilnimo waxaan rabnaa marka siyaasiyiinta Soomaalidu cudurka in Ilaahay ka bixiyo uga duceeyo waxa la joogaa maalin fadli badan bal siyaasiyiinta Soomaalidu soo duceeyay Ilaahay cudurka ka saaro oo ay dadkooda aaminaan oo ay dalkooda aaminaan oo ay inta kulli waxa ka dambeeyo oo dhan Ilaahay aaminaan subhanahu wa ta'ala waxa kale oo lagu imtixaanay cudur la yiraahdo cadkanow ama ku cunay ama ku ciiday ama aniga madax ahaanayo kursigaana ku fadhin ama naarta ka cabto wax dalka bali qof muwaadina oo wadani ah oo dalkiisa iyo dadkiisa wax ku farayaan sidaas oo sameeyo laakiin siyaasiga Soomaaliga waa sidaas ma afkar ma rabo inaan ku ballaariyo dad badan oo siyaasiyiin ah haday xamar caawa 10 qarax ka dhacdo farxi lahaa madambiga hadaa taado inay dambi ay barayaan muxuu saa u leeyahay ma aha inuu Soomaaliya nacab yahay ma aha kursigan buu safadhin kursigan ama ku cunay cadkanow ama ku ciiday waa dhaqan siyaasiga Soomaaliyeed uu leeyahay asagana Ilaahay u barya in Ilaahay siyaasiga Soomaaliyeed cudurka ka bogsiyo ba asagana cudurka kale ee ka asagana aad ku dhibka badan waxa weeye siyaasiga Soomaaliyeed hadda soo baxay waagi hore la dhaamay oo hadda maanta aan aragno waa in hindisihii laga iflaasaba hindisada la waayo qofku wax cusub keeni waayo waxba baynu keeni waayo السياسة هو بدائل وoptions والternatives كان في عن كان كسي في عن كان كسي في عن سياسة هو سلاس بل كورهم السياسيين دن أو موديل كيل أديك سدي أي واحد عن مقطع حسن الشيخ لقب الله يستاهل موديل كي doorashooyin kii hore xilligeedii dawladdu markii waqti ka dhamaaday modelkii la adeegsaday kii kaliya la adeegsanaya xataa wax ka bedelan lama keeni karo warkaas wuu dhacay haddii xataa mar la adeegsaday waa laga gudbay waxaa la rabaa in wax ka fiican la keena la rabaa oo kii ka duwan laakiin haddii la yiraahdo walow dakhaluu juhra dabbi la dakhal bariga xasan sheekh uu ما عقلي ما عقلي هدو جوده هدو قرينا هذا ضرب قلم ليش هسه نحترمه كده ده هدي لي هذا كورة مرناي وقري مرناي قلم ما هكاش دقيقة ما هم في دق ساسا وكر بحيسدي يلا روح اسمعيته وروح هوابا تجيه خطر له قري وحكى لكين محمد مسكحدي إبر كده جاي maxaa guriyay haddii aadan haynba hal yaraatee wax hindisaha aadan keeni karin annaga expert ku hayr garanayne ku keenaan ee ogolow naga soo doono annaga dawladda ka soo codso experts baan ku hayr garanayna ku shaqaalaysiinayna hindisayaal ku keena cusub iyo si aad u dhaqaaqda xataa لكن ماشي اللي تجناله واللي يراهدو ما أنتي سيدا ليالي بيالي الناس سيدا سي باشو كل غلطان سنة إلهي تاسمه فيها وضياشو حالي تاسمه فيها مركا أرنتا كو سابسان كعوني أما كعيري وعور إلهي هينا قبحيو أرنتا كو سابسان أجندلا قفكو إنو سان أجندلا كينسان كريم أصغر وإلاتو وين وفقر حاجة hindisihii iyo hal abuurkii ku dhacay ah marka asaguna waa cudur kale Ilaahay hal abuurkii odayaasha saaxiibadana u soo celi waxaan rabaa dawladdii hore kacaanka dadka Soomaalidu ama hal abuuradu waxay ahaayeen eray bixinta aad bay ugu fiicnaan jireen eray waxaa jira ayuu kulli waxa ay ula jeedeen ayaga yaqaane loo yaqaano dib u socod eray la yiraahdo jira erayga dib u socod asagii oo
dib u socod siyaasadeeda oo practical baan hadda aragnay tusaalaan idin siinayaa halkan dowladdii cabdiqaasim madaxweyne cabdiqaasim baa imaaday kuma guulaysan in madaxweynuhu uu soo dego villa Soomaaliya oo ogtiin Cabdullaahi Yuusuf baa yimid Cabdullaahi Yuusuf legacy-ga ugu weyn uu ka tagay waxa weeye oo dalkan uga tagay dowladdii wuxuu keenay madaxtooyadii Soomaaliya markuu imaaday Cabdullaahi Yuusuf hadduu dhihi lahaa cabdiqaasim wuxuu ka tegey 2004 baan ku noqonaynaa ka waran meeshii baan taagnaanaynaa sidaa 2014 ahayn aan ahaano fiilada lama imaadeen fiilada waxaa lagu yimid geesinimo iyo riski badan oo la qaatay dad badan baa ku baaba'ay ugu dambaystiina dowladdu waa la soo dejiyey marka tallaabo geesinimo ay ahayd Cabdullaahi Yuusuf waa tagay Sheekh Shariif baa yimid madaxweyne Sheekh Shariif legacy-giisa ma taqaanaa ugu waaweyn wax badan uu qabtay waxa ugu muhiimsanaa in waxaad ogtihiin asaga dibadda lagu soo doortay Cabdullaahi Yuusuf dibadda lagu soo doortay sidaasay ahaan jireen madaxdii dibadda asagu wuxuu suurto geliyey in madaxweynihii asaga ka dambeeyey lagu doorto gudaha magaalada Muqdisho waxaa kaloo suurto geliyey in qofka xildhibaanka ah ee qof hogaamiye kooxeeda ama siyaasi keligii soo qorto in intuu ka wareejiyo in loo dhiibo odaygii reerka in la yidhaahdo odayga reerku ha soo qoro ayadana horumar kale ah ka warrama hadduu markuu imaan lahaa uu dhihi lahaa maya waxaan rabnaa inoo celiya sheekadii hore ee dalka dibaddiisa madaxda lagu soo dooran jiray hana geeya hadduu dhihi lahaa ka warrama sow dibi socodnimo ma ahaatee dibi socodnimo noqon lahayd xasan sheekh baa yimid xasan sheekh wuxuu yimid ayadoo dalka dowlad goboleed keliya ka jiro oo la yidhaahdo Puntland marka laga reebo Somaliland iyo galmudug oo aad u yaray xasan sheekh wuxuu sameeyey stateskan oo dhan federaalkii buu faafiyey uu fidiyey marka Jubbaland South West galmudug hirshabeelle ayaa samaystay markii la soo gaaray doorashadiina waa legacy-gii madaxweyne xasan marka la soo gaaray doorashadiina wuxuu yidhi hal oday lama ag fadhinaye culays baa ka yimide 51 qof kursiga ha doortaan wax la yidhaahdo ereyga waxaa yimid la yidhahdo election ama doorasho ayaa tiri marka doorashadii markay adkaatay doorashadii saxda ahayd in la gaaraa waxaa la yidhi mid indirect ah ama doorasho dadban meeshay ka timid waay marka ereyga doorashada in lagu hadlo madaxweyne xasan sheekh legacy-giisa waay maalintuu yimid hadduu dhihi lahaa maya waxaan fadhinaynaa maxaan ku dhahaa odaygii iyo Puntland keliya aan state ka haysanaynaa halkeedii aan ku wadnay dib inoo celiya xilligii aan nimid 12 dib inoogu celiya soo dib u noqosho ama dib u socod siyaasadeed ma ahaatee dib u socod siyaasadeed bay noqon lahayd dowladdii ka dambeysay way dadaashay marka laga fiiriyo dhinaca doorashooyinka xilli yar dambe runtii way mashquushay xilli dambe oo aad u yar ayay maxaan ku dhahaa hawshaas u dhaqaaqday dowladdaas sidaa darteed ayadii oo aan qorshe diyaarin oo aynan u habaysnayn sidii la rabay aan u diyaar garoobin ayaa waqtigii ku dhacay waxyaabo kale oo runtii ay wax ka qabteen oo badanna waa jiraan hadda la yimid hadda haddii la yimid saaxiibadeen markaan noo imaadeen mucaaradka waxay yidhaahdeen 2022 inoo celiye maysan dhihin 2016 inoo celiyena maysan dhihin
2,000 iyo maxay dhaheen 12 noo celiyey bal intay dib u boodeen fiiri meeshay gaareen dib u socodnimo meeshii ugu dambaysay ee ugu fogeyd bay u boodeen war 2012 haddaan tagno Soomaaliya say u ekeyd markaas waasaan sheegnay maanta ma qarax baa jira ma burbur baa jira maxaa jira 12kii ma gudi doorashaa jiray ma dastuur baa jiray ma maxaan ku dhahaa mashruuc baa inoo degsanay ma doorashaynu u jeednayba ma nabadgeliyaan haysanay waxba ma jirin maanta waxaasoo dhan baan haysanaa waxaan haysanaa nabadgeliyo tajrubaan galay xamar baan 25kii January bay dhabaad hadda arkayseen sidaasayna usii soconaysaa nabadgelyo inoogu dhammaatay barwaaqo inoogu dhammaatay si wanaagsan bay inoogu dhammaatay inta kalena sidaas oo kale insha Allah ku dhamaanaysaa guddi baan leenahay doorasho shuruuc baan leenahay dastuurkii baa inoo dhammaaday dawlad taagan oo hay-adaheedii iyo kaabayaashii dimuqraadiyadda iyo doorashooyinku ay dhammaystiran yihiin baan nahay sidee 12kii ugu noqdaa see loo ekaadaa see loo noqonaa waxaan ugu baaqayaa 12 ma jirtee shacabkeenu inaga yeeli maayaan dhan kulligeenu soo raacno shacabkeenu naga yeeli maayaan marka shacabkeenu inaga yeeli maayaane language la garan karo walaalayaal la imaado oo ah war ama tala keeno nagu soo dara talo doorasho qof iyo cod dalkan dadka Soomaaliyeed oo ogolaanaysa awoodooda dastuuriga war haddaydan tala hayninna tala raac noqdo oo taanada khayr baad ka qaadaysaa qaata warku intaas ku soo aruuraya war duulaankan maalin walba nagu soo duulaayeen dadkaas ama odayaashaas aan ognahay inay agentiga u yihiin dawlado kale oo aad taqaanaan intay soo duulaan ay quraan durwaaga inagu akhriyeen inaga daayeen war cagad jublaynta amniga dadka Soomaaliyeed ee reer Muqdisho gaar ahaan ay dhibka faraha badan ka soo mareen ee ay maanta haystaan cagad jublaynta amniga la xiriira ka daaya war saraakiisheena iyo ciidamadeena iyo hay-adaheena amniga ku kalsoonaada waxyaabaha aadka u xun oo aadka u qaabka daroon maqlo waxaa ka mid ah siyaasada dawladdan baa waxaa la sheegay inay dilayso see lagu dilayaa maxaad samaysay oo lagu dilayaa ilaahay baan ka magangelaynaa in dawladdeenu ay siyaasad dad u disho maxaa loo dilayaa walaalaheen waa madaxdeennii waan qiimaynaynaa waan sharfaynaa dil iska dhaafe af xun uma ogolin hal kelimo xun in la dhaho uma ogolin mana yeelayno dil iskaba dhaaf iyo hadidaad marka walaalayaal idinku qadafka iska daaya idinku waxaan jirin abuuraysaan iska dhaafa dadka soo dhex gala shacabka la sheekaysta waxay rabaan ogaada madaxtinimo haddaad rabtaan dariiqaad u maraysaan waa taqaanaan waa shacabka dariiqa shacabka waay shacbiga waay shacabka haye shacabka u soo doonta haddii ay jiraan dood aad ka qabtaan aaliyaadka iyo mekanismka doorashooyinka noocay rab ama sharciga ha noqdo shuruucda ha noqoto ama guddi ha noqoto ama siyaasad ha noqotee haddii aad dood ka qabtaan oo waxyaabo aad isleedihiin malaha meeshaan idinma fiicna ay jirtaan noo sheega waa la hagaajinaa wixii khaldan waa la toosinaa waa laydin qancinaa diyaar baan nahay ilaa iyo muddo dheer waxaan idinla daba taagannahay baryo waxaan idinla daba taagannahay waano iyo wacdi waxaana idin leenahay war walaalayaalow realitiga u imaada dadkeennu meeshaad joogtaan wuu ka soo gudbay dadka soo gaara idinka waxaad rabtaan oo dhanna
diyaar waaye noo imaada marka hore doonitaanka shacabka iyo xuquuqdooda dastuuriga ayaynaan inkirine aan dhammaanteed wada qirno halka aan isugu nimaadno wixii ka dambeeya soo maaha wixii ka dambeeya waxaad rabta noo sheeg adaan kula mid nahay waxaad rabta noo sheeg inaan ku dhacno ma rabno in manipulation lagugu sameeyo ma rabno waxaan rabnaa waxaad adiga og tahay ku qanacsan tahay goob joogayaal joogaan adiga iyo aniga aan u simannahay ayaan rabnaa cadaalad baan rabnaa wax cad baan rabnaa sanduuq baan rabnaa sanduuqaas siduu cadaalad ku noqon lahaa siduu nasiih ku noqon lahaa sidii aan inagoo inoogu ahaan lahaa kaalay aan ka wada shaqayno aan ka wada hadalno noo imo intaasun weeye wax kaloo yaalla meesha ma jiro mar kale waxaan leeyahay ciid wanaagsan dhammaantiin waxaan idin rajaynayaa bashbash iyo barwaaqo marka waxaan idin leeyahay nabad ku ciida guul ku ciida khayr ku ciida insha allah.